madaxweynaha cusub dalkuna hore u socdo dimuqraadiyadduna hore u socoto Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshaan dibka badan Allah ku saamay waa tahay daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaara oo aynu ku eegi doono afar arrimood oo laga filan karo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. afarta arrimood waxaynu ku dul istaagi doonaa qodobo dhowr oo kala duwan iyo waxyaabaha laga filan karo madaxweynihii hore ee talada ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. daawada waxaan ka codsanaynaa page-ka inaad follow tiraahid like dhe share dhe waana ku mahadsan tahay la jaanqaadkeen. waa tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xafiiska ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. balse taas bedelkeedu waxa ay dadku isweydiinayaan talaabada xigta ee uu qaadi doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida caadiga ah madaxweynaha cusub waxa uu gudagalaa shaqooyinkiisa ku saabsan dhismaha dawladda oo ugu horeyso soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub inkastoo aysan weli dhicin munaasabadii weyneed ee caleemisaarka madaxweynaha cusub. balse waxaa muuqata in dhegta loo taagayo mustaqbalka madaxweynihii hore iyo waxyaabaha hadda la gudboon maadaama uu maanta si rasmi ah xilka u wareejiyay. haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa afar arrimood oo ka mid ah waxyaabaha sida gaarka ah looga dhur sugayo inuu meel u jeeyo madaxweynihii hore. kow xaguu degayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee ay su'aashu ka taagan tahay waa halka uu saldhig ka dhiganayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 5 sano ee la soo dhaafay hoyga madaxweynihii hore waxa uu ahaa madaxtooyada qaranka Soomaaliya isagoo oo hayay xilka ugu sareeya dalka. balse hadda waxa uu noqonayaa muwaadin aanan haysan xasaanadii madaxtinimada. tan iyo markii doorashada soo ilaatay waxaa socday qabanqaabo lagu diyaarinayay guriga uu degayo madaxweynaha xilka ka degay. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo warfidiyeenka la hadlay waxa uu xaqiijiyay in madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu degi doono dalka gudihiisa. inkastoo aan faahfaahin buuxda laga haynin waxa laga soo tabiyay in Farmaajo uu kireystay guri ku yaala wadada u dhaxaysa isgoyska kiiloomitir 4 iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdullaahi Ismaan Aadan Cadde. aagaas oo dadka qaar u yaqaanaan aaga qadka cagaaran halkaas oo ay degan yihiin madaxdii hore ee dalka iyo kuwa hadda jooga qaarkood. halkaasi waa goob amnigeeda aad loo adkeeyo dadka caadiga ahna ay ku adag tahay inay galaangal gudaha u yeeshaan. xitaa qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah waxa ay sheegeen in guriga cusub ee Farmaajo uu horay u deganaan jiray mid ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. 2 filashada taageerayaashiisa Farmaajo. ka hor intii uusan Farmaajo noqonin madaxweynaha Soomaaliya iyo markii xilka loo doortay kadibba waxaa muuqatay taageero xoog leh oo uu ku lahaa gudaha shacbiyadda. su'aasha ay dadka la dhacsan fikirka iyo maamulka Farmaajo ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah nooca ay yihiin barnaamijyada uu ugu talagalay. ugu yaraan waxaa laga dhur sugayaa in uu shaaciyo tallaabadiisa siyaasadeed ee xigta. ilaa iyo haddana ma muuqato qorshe ah ama qorshe ku aadan inuu dalka ka baxayo iyo in kale. waxaase la xasuustaa in 10 sano ka hor markii laga wareejiyay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inta uusan madaxweynaha noqonin uu durbadiiba aaday qurbaha. balse hadda maadaama uu dalka degayo waxaa durbaba taageerayaashiisa ay isweydiinayaan qaabka madaxweynihii hore uu u jahayn doono barnaamijyada ay ka filan doonaan madaxweynihii hore ay taageerada buuxda u ahaayeen. 3 xilka xildhibaannimo. sida ku xusan dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya qof walba oo noqda madaxweyne rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn waxa uu xaq u yeelanayaa inuu xubin joogto ah ka noqdo baarlamaanka federaalka ah gaar ahaan golaha shacabka. xubintaasi oo ah xubin sharafeed. cid kaste ayaa hadda filan karta in Farmaajo uu ka soo muuqdo hoolka shirarka baarlamaanka si la mid ah
xildhibaanada kale ee la soo doorto. Waxaa xusid mudan in baarlamaanka ay ku jiraan xildhibaano taageersan lana dhacsan qaab hogaaminta madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. Madaxweynaha hadda la doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo horay mar kale u soo qabtay hoggaanka dalka ayaa 5 sano la soo dhaafay ahaa xildhibaanka kali ah ee haysta kursiga joogtada ah ee baarlamaanka. Haddii uu Farmaajo soo xaadiro golaha shacabka waxay noqon doontaa markii ugu horeysay oo asagoo xildhibaan caadi ah uu halkaasi tago. Laakiin lama oga goorta uu bilaaban doono inuu xildhibaannimadiisa dhaqan geliyo. Walow ilaa iyo hadda ay dadku isla dhex marayaan ama ay qaadaa dhigayaan Farmaajo ma heli doonaa xilka xubin sharafeedka mase wuxuu noqon doonaa sida madaxweynayaashii hore ee ku meel gaarka ahaa. Tallaabada xigta mucaarad muse muxaafid Farmaajo muxuu noqon doonaa? Tani waxaa lagu tilmaami karaa qodobka ugu weyn ee sharaxaadiisa laga sugayo Farmaajo halka uu cag dhigan doono. Habeenkii lagu dhawaaqay natiijada doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud, Farmaajo waxa uu goobta ka sheegay in uu Allah u weydiinayo inuu u fududeeyo xilkiisa, asagoo halkaasi ka ballan qaaday inuu la shaqayn doono madaxweynaha la doortay. Maalmihii xigayba waxa madaxweynaha bedelay uu ku soo dhaweeyay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho. Durbada waxaa soo idlaaday xiisadii siyaasadeed ee labada mas'uul hore u dhex taallay. Afhayeenka madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxa uu sidoo kale xusay in madaxweynaha Soomaaliya kolkii hore uu ahaa nabadoon, isla markaasna uu ahaan doono nabadoonkiisii wadina doono isku soo jiidida dadka iyo dhaqangelinta barnaamij abuuryo uu u samayn doono dadka shacabka ah. Taas darteedna uu deganaan doono gudaha dalka meelna uusan uga soconin sida uu sheegay Afhayeen Cabdirashiid Maxamed Cabdulaahi Farmaajo qudhiisa ayaa khudbadii uu maanta ka jeediyay xil wareejinta ku soo hadal qaaday isla mawduucan. Waxa uuna u muuqday inuu taageerayaashiisa ugu baaqayay inay la saftaan dowladda cusub. Waxa uuna shacabka ugu baaqay iyo taageerayaashiisa inay la shaqeeyaan dowladda, isla markaana madaxweynaha cusub iyo kii horeba ay ahaayeen madax dadka shacabka ah adeeg u haysay, lagana sugayo shacabku inay la shaqeeyaan. Wuxuuna yiri doorashadii way dhamaatay, hadda waxaa la gelayaa waqti shaqo. Sidaa darteed dhammaan taageerayaashayda iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda cusub, ayuu yiri madaxweynihii hore ee talada ka degay Mudane Farmaajo. Madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda wuxuu wadaa qorshayaashiisii ugu horeeyay ee uu ku dhaqaajinayo bilowga siyaasaddiisa cusub. Walow dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan Xasan Sheekh Maxamuud in ay ku xiran tahay hore dhaqaaqa siyaasaddiisa wax ka bedel cusub oo la yimaado, maadaama uu 4 sano oo hore soo ahaa madaxweynaha dalka. Taasina ay ka caawin doonto in uu awdi doono dhammaan duldulaaladiisii siyaasadeed ee dadka dhaliilay siyaasaddiisa ay sheegi jireen. Xasan Sheekh Maxamuud qudhiisu waxa uu sheegay markii uu xilka ku guuleystay inuu u jihaysan doono dhankaas isku wadka dadka Soomaaliyeed, ayna meesha ku soo idlaatay xurguftii ka soo bilaabatay ololihii siyaasadda iyo xilliyadii kala guurka. NTN TV.